السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدي أتكمل هاي دنيارة الصوماليات فرصنا أد أصلا شيء إنا وحبرتين بس عقبات أد كلا كلان سوق الشقة أما أد جعشها إنا سيهر مرسد حرفضها ما أنت لو جبها هي سوق الشقة الصومالية waxaan kula wadaagi doonaa barnaamijyo aan idin kugu talagalay oo aan idin kula wadaagi doono talooyin tusaalayaal iyo xirfado aan hubo inay ka saacidi doonaan suuqa shaqada Soomaaliya soo dhaw fiidiyogan waxa uu talagalay hordhac iyo isbarasho aniga magacayga waxa la dhahaa Maxamed Khalid Ali waxaan kamid ahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee fursad u helay inay wax bartaan waxbarashadana waxaan ka gaaray heerka labaad ee master degree-ga hadda waxaan wadaa qaybta saddexaad ee PhD degree anigu hadda ka dhigta jaamacadda Dallon University ee wadanka Suudaan dhalinyarada Soomaaliyeed marka ay muddo wax baranayaan waxa aad uga adkaata inay soo galaan suuqa shaqada waxayna aad u dareemaan dhibaatooyinka ay leedahay shaqo la'aantu waxay la kulmaan jahwareer dhinac kasta ah marar badan waxay isweydiiyeen wixii ay soo baranayeen iyo xirfadaha looga baahan yahay suuqa shaqada inaysan islahayn ayna dareemaan dhalinyarta kadib waxa la soo darasta shaqo la'aan xirfad la'aan lacag la'aan iyo khibrad la'aan intaas oo dhan markay dhalinyarta iskugu darsanto waxa ku adkaata talaabadii ay qaadi lahaayeen oo ay uga gudbi lahaayeen caqabadan la soo daristay haddaba maxaa la gudban qofka dhalinyarada ah marka uu rabo inuu soo galo suuqa shaqada maxay yihiin fursadaha iyo caqabadaha ka jira maanta suuqa shaqada Soomaaliya xirfadaha looga baahan yahay suuqa shaqada Soomaaliya aad ay u tiro badan yihiin mana la soo koobi karo dal burburay qof kasta uu dareemi karaa xirfad kasta iyo nooc kasta aad baratid maanta dalkeena muhiim ay u tahay balse qof kasta oo dhalinyaro ah oo maanta wax bartay waxa looga baahan yahay in aqoontii uu lahaa uu ku sidarsado xirfad ka badan midda suuqa shaqada hadeerta Allah ama mid ku cusub suuqa shaqada maanta uu wax ikhtiraco taasoo ka saacidi karta dalkeena inuu horumar weyn gaaro anigu ma ihi khabiir wada yaqaan dhammaan xirfadaha suuqa shaqada Soomaaliya maanta looga shaqeysto balse waxaan dhalinyarta Soomaaliyeed la wadaagayaa xirfadaha aan aqaano loogana baahan yahay suuqa shaqada Soomaaliya muddo markaan wax baranayay aan ku soo baranayay wadamada Hindiya iyo Malaysia aan waxbarashada ka soo gaaray markaas heerka master degree-ga 2011 ayaan dalka dib ugu soo laabtay waxaan macallinimo ka bilaabay jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso muddo markaan shaqeynayay waxaan u gudbay ilaa inaan noqdo hormuud kuliyadeed anigoo hormuud ka soo noqday kuliyadda culuumta caafimaadka ee jaamacadda Bariga Afrika ama loo yaqaan kuliyadda health science-ka dabayaadii 2011 waxa magaalada Boosaaso ka hirgeliyay macahad lagu barto xirfadaha la xiriira caafimaadka sida public health midwifery clinical officer macadkaas oo loo yaqaan Citizen College oo ilaa maanta shaqeeya kadib waxaan u wareegay hay'adaha caalamiga ah anigoo ka soo shaqeeyay hay'adda Save the Children anigoo ka soo qabtay booska program manager una qaabilsanaa hay'adda madaxa cilmi baarista Soomaaliya oo dhan muddo markaan shaqeynayay waxa ii soo baxday xirfado muhiim ah oo suuqa shaqada Soomaaliya maanta wali ka banaan kuna saabsan khaas ahaan filigii markaas anigu aan ka shaqeynayay ee la xiriirtay mashaariicda iyo cilmi baarista sida looga sameyn lahaa kadib markaan fahmay fursadaha ka sii jira suuqa shaqada lana xiriira shaqooyinkii markaas aan ka shaqeynayay waxaan go'aansaday inaan u shaqeysto si madax banaan anigoo hadda ku shaqeeya wax loo yaqaan consultant ama ka tala bixiye mashaariicda hay'adaha caalamiga ah ee dalkeena ay ka fuliyaan wax laga yaabaa dhalinyarada qaar badan inaysan fahansanin wax uu qabto qofka consultantiga ah balse waxaan kaga hadli doonaa video gaar ah aan kaga hadli doono xirfadaha looga baahan yahay qof consultantiga ah tooliska uu isticmaalayo wadooyinka uu maro iyo qaababka loo xareeyo mashaariicda ka tala bixinta u baahan ay hay'aduhu ay soo xayeysiiyaan dhawaan waxa aan ka fakaray bal sidii dhalinyarta Soomaaliyeed ay uga faa'iideysan lahaayeen xirfadaha suuqa shaqada maanta aad ku yaala wadankeena dad badan oo ajnabi ah ayaa ka shaqeysta aad u tiro badan dadkaasi waxay buuxiyeen boosas maanta dhalinyarada Soomaaliyeed ay buuxin lahaayeen balse wali waxa baahidoodu ay u taagan tahay maxaa yeelay dhalinyarada Soomaaliyeed xirfadihii maanta ay u baahnaayeen in dalka looga shaqeeyo ayaysan wali lahayn taas balse hadii ay horumariyaan xirfadaha looga baahan yahay suuqa shaqada khaasatan kuwa looga shaqeeyo hay'adaha caalamiga ama dawladda una baahan khibrad iyo aqoon aad u sareysa xirfadahaas iyo aqoontaas dadka ajnabiga ah dalkeena ka shaqeysta ay ku shaqeeyaan qaarkood waxay u baahan yihiin xirfad iyo aqoon aad u sareysa balse hadii dhalinyarteenu xirfadaha noocaas ay horumariyaan waxa hubaal ah in aanan loo baahnaadeen boosas dadka qaarkood ajnabiga ah
aadka u fudud ay ka shaqeeyaan balse haddii dhalinyarta Soomaaliyeed ay bartaan xirfadaha aadka muhiimka u ah aqoonta ziyaadada iyo xirfadda ziyaadadan u sii baahan in aan loo baahnaadeen ajnabi tiro badan ee dalkeena maanta ka shaqeeya waxaan rajaynayaa barnaamijyo tiro badan oo talooyin iyo tusaalayaal iyo xirfadaha aan jecelahay in idin la wadaago in idin la soo wadaagi doono balse inta aan ku kulmi doono barnaamijka xiga waxaan idin kaga tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh